marka tahay rakaab ku safraya diyaarad isla gudaha Soomaaliya filashadaadu waa in duuliyaha diyaaraddu uu yahay nin sababtoo ah waa sida looga bartay si hadda arintu ma ahan oo waxaaba dhici kartaa in haweeney ay tahay qofka kumanaanka fiid hawada idin gelinaya adiga iyo inta la socota diyaaradda tani waa kabtan Yasmin Cabdi Faarax oo xilligan ku dhawaad 30 rakaab ah oo aan kamid ahaa ku duulinaysa madaarka aadan cadde safarkeenuna wuxuu ku wajahan yahay magaalada Dobley oo ay si maalinlaha uga safarto diyaaradda saytu oo Virginia kaani aan mas'uuliyadda dadka adag saaran tahay sida naftoodina wax buu keenin oo meesha socdaan si fiican ku tagaan oo salaaminimo ku tagaan ayadoo balaayo jirin sidaasaytu mas'uuliyadda saana saaran مسؤولية دياردنا وين صارنتها دياردو وعلد هذا لا سوكو غانا هذا ملك كلا سوكو غانا وين صارنتها responsibility كذا وبدنا كم إذا ركابك ديارده وحي واحد وحكو عصب إن دوليها ديارده أي تهي هويني سيدا سوي تهي وحي ديرجلين أموجيين كابتن ياسمين أدي أنا هم بلين أنا قبلنا سوماليد أو كدولية ديارده taasoo micnaha nagu dhalisay inaan diyaaradda raacno maadaama ay tahay dadka ugu yar haweenka micnaha Afrika oo dhan oo diyaarad wax wado oo ay ku yar yihiin haddana waxaan aad ugu dhiirigelinaynaa maadaama haddana ay tahay gabar Soomaaliyeed ee u baahan tahay waxaan geesinimo iyo diyaaradda micnaha ma ahan wax la iska wadaayo aad iyo aad ugu qanacsanahay inay gabar Soomaaliyeed ee diyaaradna wada duuliyana noqoto kabtan Yasmin Cabdi oo muddo badan ka soo shaqeynayay Soomaaliya kadib markii ay dalka Kenya ka baratay cilmiga aviation-ka ama duulista shaqadani waxay mirdhal u tahay hanaan ay lahayd yaraanteedii duulinimo waxaan ku bartay iskuulka oo lagu baranaa jirto magaalada Nairobi Kenya and iskuulka sare dugsi sare markaas soo dhameeyay sidii dadka oo dhaqtar inay noqdaan oo rabaan qaal lawyer nimo sidayn u rabaan sidaas camal duulinimo u rabay duuliyuhu waxa uu ka mas'uuliyad badan yahay wadaha gaadiid kasta oo dhulka ku socda dhammaan tilmaamaha uu ku soconayo iyo go'aanada uu qaadanayo waa kuwa u baahan taxadar connectionka pilotkii towerka emergency procedures wax la dhaha jirto diyaaradda lagu barayo oo markii sidaas camal haday dhacdo soo uu la halil u raadin ugu bixi lahayd situationka so marka emergency procedure ka raace sidii lagu bare and then side muwalan gareyn kartaa this procedure inkastoo ay dowladnimadu u baahan tahay inuu qofka u aado goobaha waxbarashada sida jaamacadaha ama iskuulada haddana si la mid ah dalwarnimada oo kale ee baabuurta gaadiidka kala duwan dadka ka agdhow kabtanada diyaaradaha waxay fursad u haystaan inay baran karaan sida diyaaradaha loo duuliyo iyagoo aan aadin dugsiyo wadista diyaaradaha waxay dhinacyo badan kaga duwan tahay tan gaadiidka kale ay dadku fahansan yihiin oo marar fara badan waxaa fursad nasasho ah heli kara duuliyaha iyadoo haddana diyaaradda ay hawada ku jirto autopilot waxa diyaaradda markaas when you engage the autopilot adiga gacantaada waa ka baxday it's keligeed waa marka hadda diyaaradda select altitude into feet ku soconi kudi qor markaas laakiin marka take off iyo landing ka autopilot ma adiga waa binafsi ودوليشما ولا ديارة كحنيسة ياسمين أو حدا ديارة أوكلا ودا كلية جودها صومالية وحي كوها منيسا إن نغطى مستقبلك دولية عالمية وحينا أوجاتي شروطها لو جبها هي قفك لو قادن كرو دولية أوكلا جوشة قاردها أما لايسنس كأكو حرنت هاي مركا لايسنس كأوهري وحواي private pilot license أو قاضي كرتا صاحبياش هذا فاميلكا iyo xasiibto afar qof diyaarad afar qof waxaan la ku qaadi kartaa commercial pilot license hada dadka soo u wadaay mid kala jir oo ATPL la dhahay idana soo marka hada sidan oo dadka u wada commercial pilot license ah haysta